والدين تقار كوضا قولك دبقلي وهفيرينيسا cunugaasoo iduu xanaagsan imaanaysa qolkaagan galay sigaaran ku arkay. Why you have to tell him? Why? He was respecting you, wuu kaa qarsaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليال ميل كستو عاد نقد دعوانيسان واني سلاميا واني قو فرحانة أفريكان يوت سيرفيس وحن مانتا هابي اكسايرد كونا هاي إنو برنامج أفريكان يوت سيرفيس نقلصو قيب قلايو الشيخين أستاذ كان إلهي خير بدن حسيو دكتور أحمد يمني oo ah sheekh ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aad u garanayso wanaagiisa iyo ma aragtay ay value ummadda ku daray asagoo qoray ama tarbiyaha ahaato ama diinta ahaato in ka badan 22 buug ahaa waqti dheer macallin iyo tarbiyada ilmaha levelka doontaba ahaatee sheekh waxaan aad kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalka nagala soo qayb gashay African Youth Service Program ilaahay ha ku xifdiyo dadku in badan way ku daawadaan laakiin waxa laga yaabaa inaysan background kaaga garanaynin marka in yar insha Allah taala time qaado noo sheeg bal background kaaga si ay dadku insha Allah taala ay uga dhargaan doctorka بارك الله فيك مركور هذا وما صنتهي هذه ولا داونا كل وقت ودع سلامي الله يديم بركيه background ka wax yar hadii aan gadaal ugu noqdo dhinaca oo inta ugu muhiimsan xooga saara alxamdulillah dhinaca waxbarashada diinta aniga aabbahay my first sheekh ahay aabbahay markii soo qoray casharada diinta soo baray quraanka fiqiga tafsiirka xadiidka kulli aabbahay markii was my first sheekh alxamdulillah kadib markii aan Mareykanka imaaday wax koobaad aan bartay طبعا marka wadamo carab ka timid English ma aqoonin English was like زير عملوا هاي إنجليش كان حوجة صار ESL الحمد لله تجربة بدنا صوم مري دباتوين بدنا لكن الحمد لله finally we made it إنجليش كان حوجة صار كدب وحام برتي مركا عافيمات كقيب تأرتي كان برتي الحمد لله مركان دمي كدب وحانجو أنصد مركي ناسي وحاي سويدي ورقد أقوين ابن آدم قاعدة كرم حواي this time title واي وقت قد أقوسرت ابن آدم قاعدة كرم ورقد PhD جواي then I will get it. Wow, mashallah. Then I will get it, yes. So that's why go on and get it. Marka RT aan bartay alxamdulillah kadib master kii aan saddexda level way kala duwan tahay. Bachelor kii مثلا kii koowaad waxa waa RT waa caafimaad waa. Master kii waa fiqh al-muqaran waa diinta shariica al-islaamiyya waa. PhD kii waxa waaye falsafada qadana qaybta taariikhda islaamka. So taught 3 different subjects waaye aan kala qaatay. الحمد لله إله وإيفو ذي لكن وحارب دنيرتا وبرنامج دنير ما دام وياهي رأيت وحارباي وحبر الشذا هذا قوان سوقات وحكاه ورشتاي كرمرة أنا إنجليش ما قرنين الحمد لله هو إلهي تلصار جهدنا بحي أنا sometimes وحالي دي إنجليش وقصب عسالي دي جري كلمة قدك شيء أنا أقرأ كلمة وحفظين جري what is means what are maxaa kala dhaxda galan ma kala kasi xataa is means are galan ma garanin what does means what do why ma kala goormu does noqona goormu do noqona goormu have noqona xataa kaliya ma qan waa xifdin jiray marka waxaan sameyn jiray I used to create maxaa la haay sentence kaliya create gareena waxaan xasuustaa markii oo English aan qaadanay 102 macallinka wuu yaabay waa English 97 98 99 final xataa ma qaadanaynin أنا كلاس امتحان كان أول راح وحان كيني جري مرة كيني 95 كيني واحد ناقي. إلى معلمة ترو you get an A anyways this from 9 to 5 كاس أنك حناقي أنقري. final مقادنيني. ESL مركا أو كوساس مركان سوق بي إنجليش كان معدي وكبر وها معلم مجلس وحسوس تاي مركو أرك ورقة قارن جودني يجمدي ما حناقي وسوق هذا وسوق next day وأوكي يعني. والله أستاذ في مركز did you hear type it again؟ مركز عندها وفي وأقري وحوي you know what A plus ويقول even though حوي college plus يمنس ما كلا يقانا لكن I'll give you plus كلاس كان أحبرتين كيس إيدو لجوجو وحوي I would like to ask a question and I وحوي I'm sure no one will answer but one person وهل سوى في فيري Can anyone define what is complete sentence محاوية أي شيء كره complete sentence أي شيء كره وليس في فيري لأن
أنا جرامر أو صوبرت اللغة دي لكن أي ذاك اللغة ده إنجليش ما بهم عادي وقرنا سنتنسي وكمبليسنسي يين كمبلين ما كلا يقانا أنا هذا الكوضة واحد مركز مركي ليس مركز أحمد can you tell us what مركز أنا ياس كنت complete sentence محوته وحون كنت subject وتاي verb object حال مرة سهل وذي فيري ياسو يري أحمد هلا صاحبي وحير أحمد وحوري وحويري وأحمد يجس أفر إسيه لقراي هي كان أوجه سي ودروب جرينا سدح لي السيد أنيجا وكوبات وحو أهاي complete أهاي وحير today I would like to inform all the students Ahmed you don't have to come back to this class. Wow. You already give me your 3 essays كاجا you don't have to come back مركا the fourth one halkaas ugu day لأن the fourth one anyways ولا drop جري لها. Yes. waxaa kuu bilaabay maaragtay cilmiga aabaha nacam allah naxariisto ilaahay u naxariisto maanta waxaad haysataa PhD sidaad sheegtay waa warqadda ugu sarreyso oo la helo waay qof cilmi qof u bilaabana aabaha ugu qiimo badan maasha Allah gurigeednimada cilmi ku soo baratay maanta ilmo badan oo waalidkood cilmiga diinta aysan u bilaabi karin baa waxay ku nool yihiin wadankan oo aad aragtay fidnadiisa iyo dhibaatadiisa maxaa tala ahaan u siin lahayd waalidka marka waalidka maxaa tala ahaan u siin lahayd jazaak allah khair niyo aad su'aashaas waa wax iga guuxay waa runtii khayr allah ku sii waa meel xanuunaysa taabatay caruurta waa nicmo waaye ilaahana bixiyo nicmo kastana su'aasheeday leedahay waajibaa naga saaran caruurtii marka laba mid waaye waalidkooda inuu caawin karo waxbarasho waqtina uu hayo waxna bari karo sometimes waxaa asoo cilmi yaqaan waqti inuusan u haynin wadana la soo galay qof walbo rizqiga daba ordaay ama waqti uu hayo laakiin cilmi uma lahan labadaas waalidka labadaas mid ka mid haysto ama labadaba haysto my advice to him ko inuu laba wax sameeyo ko meesha ugu weyn ugu fiican oo ilmaha wax laga bari karo inuu geeyo waxaan rabaa inaan invest your kid don't invest houses invest your kids haddii kusoo gasho $1,000 ay kusoo gasho 500 waxbarashada caruurta inaad ku gelisid aa kaaga fiican inaad 500 u siib garaysid Umar ibn Abd Aziz markuu dhimanay rahimahullah ta'ala caruurtiis markuu dhimanayay 8 diinaar oo ka tagay 3 diinaar laga bixiyay hal kafana wiilal badan oo lahaa kulligood 2 diinaar markaas caruurtaada maxaa amiirna u ahaaya markaas wuxuu yiri caruurteeda hadii taqiyihiin ilaaha aga tagay u dhahay wallahu yatawalla as-salihin hadii dad xun yihiin wuxuu yiri dad xun macaawinay Umar ibn Aziz caruurta lacag laakiin wuxuu aga tagay tarbiyo cilmi aqeeda akhlaaq wuxuu baray ummadina ixtiraamaan ayuu baray nin ka sheekeynay wuxuu yiri waxa arkay Umar ibn Aziz ilmihiisa mid kamid ah oo maalin sadaqaysanay 100,000 diinaar dahab 100,000 diinaar da hadii maanta la xisaab $1 million way ka badan tahay oo hal place ku sadaqaystay marka waalidku waxaan rabaa ku ilmahaaga invest gareyso wax bar meesha ugu fiican wax ku bari kartid diintana bar maadigana bar inta dad la kaashan kartid la kaasho intuu guriga joogane adiga waxa u noqotaa environment-igu wax ku noqo ku bara laha oo diyaari oo gurigu ha ahaado meel wax ku barto marabi dadka qaarkood oo kale mesela cunuga meeshaan wax ku baranayo maamadin telefoon maama kala kula hadlaysaa cunuga wax ma baranayo akhi caruur ah jirna anaga waaweyn ma dhalanin صح that's true yes ani waa kasa markuu hooyadii sheekeynayso kala jaanis iyo Holland meelaha ka ciyaari jiray buug aqris buug way kala furay laakiin wax kale ku mashquulsanahay why because my mom is busy my dad is busy macallinka is busy daas waxaan rabaa inaan waqtiga ilmaha waxbarashadooda hooyo walaalay khayr Allah ku put your phone away put your phone aside yes markaad dhahdo investment hala sameeyo sida clonigii ama wadamadii la soo gumeystay ay loo gumeystay oo kale tusaale ahaan oo kale dadku waxbarashada investmentiga waxay u qabaan tan maadiga kaliya waad aragtay tan ma aragtay diinta sabtida iyo xataa cunugii oo dug la jiidayo la geenaya see waalidku u baahan yihiin ay u balance gareeyaan inay cunugoodii maadina barto sida uu shaqaysto oo uu gacanta sareyso u noqdo san cidna u tuugsanin diintiina ay ku xasisho oo meel kasta uu tago uu og yahay qof muslim ah oo value wadaynayo jazakallah khair waa qofki bini aadanka laba meel loo baahan laga dhiso hal meel dadka ayaga ka dhiso uma baahan sheegitaan uma baahna in la habay u baahan yihiin meesha maadiga markii la gaaro qof walba cunugiisa saarab inuu dhiso laakiin waxa the best way uu sameeynayo inuu sheego
dhinaca diiniga waxaan rabaa inaan dhaho waalidka hadduusan cunugaaga diin aqoonin PhD maadaduu kuu soo qaata xataa waxba kuuma ahan That's true. Very true. cunuga diinta PhD-ga iskuulka markuu tago waxaa la baraa you are free do whatever you want to do just say it just do it waxaasaa la baraa diinta maxay baraysaa waalidka ixtiraam muslimaa tahay help your community walaalaha caawi waalidka caasi ha ku noqonin agoonka caawi akhlaaq spiritual la baraa taas la'aanteeda ibni aadamka wax ma noqon karo haddii aan taas ku weydiiyo cunugu markuu iskuul aado saad ogsoon tahay ilmaha wadankan kuu joogo waa la soo dhaweeyaa meelay ku cayaaraan bay leeyihiin free time bay haystaan way jecel yihiin waxbarashadii waana la jeclaysiin laakiin macallimiintii diinta joogay xoogaa weli waxaad moodaa inay ushii weli haystaan cunugii ilaa 12 sano 13 sano 14 sano kaliya la keeni karaa see macallinkii u jeclaysiin karaa cunugii inuu diinta baro soo saaxiib la good waaye waxbarashada laba qayb waaye dhinacna waalid waaye haddan ka hadlaa dhinaca waalidkeeda dhinacna waxaa waaye dadka wax baro ama masaajidka machadka madrasada macallimiinta mudiirka idaarada qeyba ayaga saaran qeybtaasna waxaa waaye waa waajib saaran إحسان معهن واجب صارن المهن إني دين تبران أي سيان ماشاس حوجو وحا كجيرو هدي وحير أنك معلنا سواء يس وقعنا معلن رجوا وين صاحبنا معلن وهاتقا بانا قانا معلنا سواء هجري معلنك حوجو لا الله هيستو الله الله هيستو إلا ذا كوباد وحاول إدارة معلنك وحاله إني سنترين سنين أنا باجران وحكو صوبرني أنكو إيماني وحبرش ده حكو صوبرنا لا إيماني معلنك أوديس أنت قفل أنتو يقانا لقوم عيبين كرو أنت أنا أقانا أنت أنا نقد بنا لكن لسه يقد بي قد يجي هذا مدار هذا لنا عص حقوق وجابنت هذي جرت ويرتاح هذي جرت ويرتاح لنا على بعضه كوسابسن نقالها نفتر كيسة معلنك هذا معلمين هذا معلم أركيس أستاذ معلم واحد ما كل تراجع على وظفوله ده سواء يقول والك إنفست معلنك والك مركي لجارو $1 أيوة حال هذا ديسكاونت يوسميه سكولك كوماني جينيساي بقول كنتم دولار يكبحنيس for one subject وهل ساعة جوجاي معلن كان سبتي أحد وحرته 4 hours سنو هايو $1 إيه كهد ليسو بالعادة واو إيه كهد ليسو مركا سيكون نقول وح أخيه ومركا وح قيمة أسميسو ذو قيمة يالنا waxaad arkaysaa macallinkii dugsiga taas laftigooda laga yaabo in leeyahay qofkan waa macallin dugsi ayadoo aan maaragtay daliil kaliya aysan ahayn laakiin aan moodo inuusan dadka kale la sinayn dadka kale intaas aadan uga soo jeeda qofka quraanka ama diinta ilaahay wada subxaanahu wa ta'ala rasuulkeena wuxuu yiri khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama waxa idinku khayr badan period idinku khayr badan qofka qur'aanka barto kadibna dadka sii baro ma sha Allah ilaah khayr ha ku siiyo su'aasha kale waxa waaye wax badan waxaan dhageystaa ducooyinka iyo qiimaha ay leeyihiin iyo mararka ay munaasib ka yihiin iyo sidii wanaagsan yihiin in badan oo waalidka kamid ah ilmuhu waqti adag bay marayaan sax oo TV-gi iyo social media-hi iyo maskaxda laga haysto waxa laga yaabaa waalidka inay habaar uga dhaco muhiimadu ay leedahay waalidku inuu ilmahoodu u duceeyo si waqtigan adag ay uga baxaan wax yar sheekh ma nooga taaban kartaa dafana khayr Allah ku siiyo waalidka dhowr dardaaran raba inaan siiyo kuugu hor waalidu waxaa noqotay qof naxariis badan oo jiljilcan naxariis raxmad waalid waxa caruurtida oo naxariisa sax oo naxariisataa laakiin waxaan rabaa inaan ku dhaho example cunuga haduu qaldamo ku soo cudur daarkiisa aqbal one of the example hadaan ku siiyo ustaad maalin caruur meel joogtaan waxaan dhahay huu yaa qaldamo kulligood gacantay taageen marka qaldin maxaa loo baahan yahay apology bixi yar meesha joogo wuxuu macallin yes أنا هو هدي قلد أنا سمي أي أبيه أو عذر دارنا لكن هو my mom no كلمة ده وأقول لك تي هنو ترتيب جنوس وحوايا هو because أبا مكواك عبسة تايمية no مرك why because هو يرهايو whenever I say sorry you know what she say بحنا قتك قولي sorry اللي ترى هاي واو هنو قص أفصل مالي ميقاني لكن وحنا لا يبسو أكو بيجري وربحنا قتك قولي sorry اللي ترى هاي هايو خير الله كوسي ولا شيء قاليه عنقاga haduu ku soo noqday I'm sorry ku yiri qabo hagsi waxa taa I accept your apology but please don't do it again okay intaas very simple akhi very simple wax naga tagadatna next time is not going to say sorry maxaa faa'iido marka so tan koobad waxa rabaa inaan dhaho kal raxmadaas loo baahay caruurta loo naxariisto ilaahi mujeeda abuuray macqaaba ay dambi sameeyay because wuxuu wili aqligooda inuu soo dhismaayeen okay so رحمة داس أم بهنا
tan labaad waalidkaan baraya waxaa waaye ilmaha waqti ha la siiyo ilmaha intaa waqti siisay markay weynaadaan waqti ku siinayeen hadda telefoon aga mashquushid cunuga markuu soo weynaado markuu kula hadlo biri communication maasa birin telefoon kaaga mashquula hadii marka ilmiga maxay ga mashquushay why because you didn't show them value oo wada hadalka هذا كور واحد يراي وحرير صوت أفريقاني هبيزو ربنا ولا هادلون أب هبيزو مركز أب ساعد ما قصعك شقي ساعة هذا حين almost بقول حوام شو عنو بالعوب بلا نقول ما أنا أبى سو جروج وحول العقد ما يشتغل محاور وحول أب I'm collecting this money I want to buy just قصة ما كان شيء والله يجا emotional I want to buy 1 hour from you كده أبيه shock he got shocked he dropped everything that he had عنو بيسو كده I'm sorry كده now I know I have to give you time give your time المحايا تنسد حاد دعاء واحد very important أخي أنبياء نبي إبراهيم أبو الأنبياء مركو قولي قد إساعي كعباد مركو قد إساعي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إلهنا أقبل مركو يري عرورتو سوكو حجي عرورتيسا عنو جيس إسماعيل بسمه عرورتو ضلبه وأوقو يحي maamo maalin qisas mar badan waa sheegay maalin ma meeshii joogto kacbadan ku arko cunugeeda 40 jir ah ka weyn waa ka dhum ways waayeen kacbad waa la kala dhumaa waa qaba dadka hortiisii baa ku dhadhar baaxday 40 sano jira waa ka weyn yahay dadka hortiis in cunugii laba gacmood inuu saan dhahay oo hoos fiiri hooyada si kasta markii u dhaw baax hatta kor uma soo fiirinin markay dhameysay kadib uu arkay inay dhameysay gacmo kooyadiisa soo qabtay wuu dhunkaday hagoosiye hooyadii oo wiilkiina waa ooyay waxaan dhahay there is secret ka dambaysa arrintan sir ka dambayso maamadu waa dabagal waa la socday ilaahay markiisa jaanisan ku raadsanay cunuga wuxuu hooy inta friisi biyan ku keenay maamadu waxaan ku hooy khayr Allah ku siiyo just meesha san ka soo daba raacay waxaan rabaa cunuga sirteedin ka dhaxaysa maxaa waa hayt first of all cunugan when we go back to haj gabadhiisa la guursano yaabo cunug yar ma ahan yani gabadhiisa ala guursana markaan xajka ka noqono waxay tiri aniga abis markaan isguursanay waxaan ballan ku garnay maalin walbina u duceyno markaas waxaan ku dhahay are you telling me now do you make dua for your kids every day markaas ay tiri not every day oo tiri every salah wow not every day every salah at least maalinta meeqa mar 5 times aabahana meeqa waay 5 times at least waay sunnooyinka iska badaabo ee helaysaa markaasana waaw maxaa ugu ducaysaa waxay tiri ducada nabi ibraahim waxaa rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min dhurriyyati rabbana wataqabbal ducaa ilaahayow aniga iyo caruurteydaba waxaa naga dhigtaa dad ugu diinta naga dhig marka saas ugu soo duceysid tii nabi yacquub sameeyay marka dhimay qofka akhi anbiya dadka wanaagsan hatta markay dhimanay ilmahooda waxay ka walwalayeen ma tacbuduuna min ba'di caruurteed markaa dhig maxaa caabudaysaan qalbigiisu waa inuu ku qaboobsado نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الحمد لله مرك شغلي وسوق بصدي دعاء مهم أخي مرك والدكو المهودة هون حريستان تايم هسيان هنو دعاء يس مركا waxaad ku taabatay aabahaas cunugiisa intuu lacagta aruuriyay oo dhahay aaba 1 hour of your time raanagad ma sha Allah waqti adag sidaan mar labaad hore u sheegnay mar labaad waqti adag bay waalidku ku jiraan صح ma naqaano anaga sida balwooyinka iyo muqaadaraadka iyo dhibaatooyinka looga taxadaro صح ilmo badan muqaadaraadka iyo hawlahaas ay galeen waalidkiina arintaas aad bay u dhibtay qaarkood waxa laga yaabaa inay ilmihiiba iskaba fogeeyaanba because hawshaas uu galay ama uu dhawaaday marka raxmaday ka mid tahay miyaa in cunugii wali loo naxariisto جزاك الله خير ilmaha laba qayb intiisan wax gelin in la daaweeyo alwiqaaya khayru min alcilaaj prevention is better than cure waay cunuga intuu yaryahay ina marka hore intuu yaryahay ku dadaashid ibn aadam wuu qaldamay wadada qalad ku galay waa ogaatay ignored waalidiinta qaarkooda qolkii dabagelay waa fiirinaysa
cunugaasoo iduu xanaagsan imaanaysaa qolkaagan galay sigaaran ku arkay why you have to tell him why he was respecting you wuu kaa qarsaday si indirect oo la hadal hooyo dadaa subxaanallah soo ma ogid maalin dhaweyd waxaan arkay cunug sigaar cabay waxaan ilaahay alxamdulillah ilaahay wiilkii saan ka dhigin maskaxiin oo la hadal laakiin maalintaa tiraa sigaarka qolkaagan ku soo arkay he's not gonna hide it from you anymore waa soo qaadana hortaada ku cabaa why you already saw it why I care marka why I care waa maskax ahaan cunuga marka ku aragtay fiir waaba ku aragtay soo maahan ignore it waxaa tiraa sii jeclaaw waqti sii you know what hooyo maanta subxaanallah waa kuu ducay soo ma ogid maxaa hooyo wallaahi waxaan arkay cunug yoo lii sheegay sigaar waxbay markaasaan waxaan alxamdulillah wiilkayga maasha allah hebel hagsi wiilkayga hebel maasha allah hooyo allah ku barakay saasaan kaa rabaa nin fiican noqo ilaahay ku sugo he will feel guilty inside he will try his best to change it or to stop it laakiin maalinta waa kugu arkay maxaa kaga qarsanaa marka banaankan ku cabaya taas